mudane maxamed xuseen rooble waxa uu kormeer ku tagay xarunta cusub xukuumadda federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto halkaan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqeyn doonto haddii Ilaahay uu yiraahdo mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ku dhow ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha deegaanka ra'iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda masaajidka weyn oo halkaan laga dhisay runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhamaado halkaan oo ku taal bartamaha magaalada Muqdisho oo ah halkii hore loo dhigi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda Soomaaliyeed ay ku shaqeyso taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kale fududeynta hawlaha xukuumadda iyo adeegga dadweynaha inta Bimalow Center moolka Bimalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa ها moolka Bimalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalow Center moolka Bimalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalow Center xarunta ganacsiga ee Bimalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimalow